Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal, waa walaalkiin Maxamed Siyaad iyo channelkii aad uga barateen waxyaalaha khayrka, muxaadarooyinka, wacyigelinta iyo wax walba ummadeenna anfacaya oo dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda iyo diinteeda sare u qaadaya. Maantana walaalayaal, waxaan idin wadaa 3 qodob ama 3 arrimood oo qofkii doonaya inuu ka badbaado murugada oo uu ka raysto oo uu helo farxad iyo laabta u qabowda lagama maarmaan ay tahay inuu ku dhaqmo oo uu tixgeliyo una awlawiyad iyo mudnaan u siiyo. 3daas qodob walaalayaal waxaan noo soo diiwaan galiyay Dr. Caad Al-Qarani kitaabkiisa La Tahzan, wuxuuna cinwaan ka dhigay ajmacu cala 3 waxay isku waafaqeen 3. wuxuu leeyahay waxaan milicsaday oo dib u akhriyay kutubta ka hadlaysa mas'alada qalaqa iyo murugta iyo tiraanyada dhammaan ama ha lahaadaan salafkeennii hore culumadeennii muxadithiintii iyo dadkii udabada ahaa murabbiin mu'arikhiin taariikhiyahano iyo kuwo tarbiyada aad ugu takhasusay iyo ghayrkoodba ha lagu faafiyo majalladaha iyo joornaaladaha caalamiga ah, kuwa reer galbeedka, kuwa bariga, kuwa koonfurta, meel alla meeshii la rabaa lagu faafiyo. waxaan arkay buu yidhi dhammaan dadkaas inay isku waafaqeen 3 arrimood. 3daas arrimood waxay daawo u tahay qofkii doonaya inuu caafimaad helo oo uu ka bogsado oo uu laabqabo helo oo murugta uu ka bogsado. qodobka koowaad walaalayaal waxaa weeyaan al-ittisaalu billah, ilaahay oo lala xiriirsado. qofka inuu ilaahay xiriir la sameeyo oo uu adoonnimo iyo inuu ilaahay isu bihinbihiyo oo uu ilaahay hoosgeeyo wax walba oo qabsaday iyo arrimihiisa oo dhan inuu eebowna hoosgeeyo. waana mas'alada ugu weyn ee iimaanka. ilaahay uu leeyahay facbudhu wastabir licibaadatihi, ilaahay caabud cibaadadiisana sabr u yeelo oo dulqaad u yeelo. sababtoo cibaadadu waxay leedahay xoogaa culays ah, culayskaasna in loo sabro oo loo dulqaato ayaa loo baahan yahay. qodobka labaad walaalayaal waxaa weeyaan iglaaqu malafi almaadi, wixii tagay oo dhan in laga soo tago, dhibaatadiisii, ilmihiisii, murugtiisii, musiibooyinkiisii, xanuunadiisii iyo dhammaan murugtiisii oo dhan in la halmaamo, la bilaabo nolol cusub, albad bixayaatin jadiida maca yawmin jadiid, iyo maalin cusub in la bilaabo oo la iska soo xiro. sababtoo ah adiga ma awoodid inaad wax ka bedasho wixii tagay. wixii tagay iyo wixii kusoo maray waxba kama bedeli kartid. saa daraadeed waxba yuusan ku wareerinin oo uu noloshaada uusan kaaga ciyaarin. qodobka 3aad walaalayaal waxaa weeyaan tarku lmustaqbali alghaa'ib, mustaqbalka maqan ha ku mashquulin oo iska daa. sababtoo ah ilaahay gacantiisa ayuu ku jiraa. marka waxaa laga rabaa inaad ku mashquusho maalinkaaga oo aad waxyaalaha aad filanayso ee xunxun aad iska hilmaanto. walaalayaal, cali ibn abi taalib wuxuu leeyahay calaykum iyaakum wa tuulu lamal, iska ilaaliya hididiilada dheer, fa inahu yunsi, sababtoo qofka waxbu halmaansiiya. ilahi wuxuu leeyahy wadannuu annahum ilayna laa yurjacuun, waxay u maleeyeen in aan xagga naga loo soo celinaynin. marka waxaana laga rabaa walaalayaal inaan iska hilmaano wixii tegay oo mustaqbalkana aan sugno oo aanan ka hor dhicin. sidaas ayay ku jirtaa caafimaadkii daawada ku jirtaa walaalayaal. wuxuu leeyahay Dr. Caad Al-Qarani waxaan garanayaa dadkaasoo fara badan oo sanado badan sugaya masaa'ib iyo humuum aan dhicin bay filanayaan oo waxay leeyihiin waxaas ama igu dhaca, waxaas ama igu dhaca, waqti hebel ama waxaas igu dhaca. marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaan wixii tagay aan iska halmaano oo aan sidaas aan ku dayno, mustaqbalkana aan sugno oo aanan ka hor dhicin, si aysan noogu dhicin waxa ay dadka Chinese-ka ay samayn jireen oo ay ku samayn jireen dadka ay maxbuusiinta ka dhigaan oo ay xiraan. waxay samayn jireen baa leeyahay tuubo ayay madaxiisa ku xirayaan, tuubadaasna biyo ayaa ku jiro, daqiiqadiiba marka hal dhibic ayay soo sii daysaa.
qofka marka maxbuuska wuxuu sugayaa dhibic walba maaragtay ayuu sugayaa dhibic markaas siduu marba u sii fiirinayo dhibicdaas ayaa maaragtay meeshaas ayuu ku waalanaya oo waali caqligiisina waa uu waaynayaa ilaahayna ahlu naarka markuu tilmaamay sidaas ayuu ku tilmaamay oo ilaahay wuxuu yidhi laa yuqda calayhim fayamuutu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha macnaha looma dhammaynayo maaragtay inta la dilo sidaas hooshooda kuma dhammaanayso laakiin cadaabkana xitaa lagama nuqsaaminayo oo maaragtay marba waa loo badbedelayaa bal maqaarkaa loo cusboonaysiinayaa si maaragtay xanuunka iyo cadaabka u dareemaan marka walaalayaal waxaana laga rabaa maaragtay inaan yani sidaas aan samayno oo aan ku dadaalno saddexdaas qodob inaan fahanno wuxuu leeyahay dadkii hore xukamaa al-Yunaan ama Greega maaragtay dadkii xikmadda lahaa ee Greega markay damcaan qofka dhibaato ama murug ama tiiraanya ay hayso inay daaweeyaan waxay ku daaweyn jireen maaragtay shaqooyin adag sida inuu beer falo maaragtay oo beer loo dhiibo marka waqti yar kadib uu iska raysan jiray qofka marka maaragtay ilaahayna waa kan naleh famshu fi manaakibiha sidoo kale waqul icmalu ayuu ilaahayna leeyahay waana acmaasha yadawiga ama gacmaha maaragtay laga qabto waa waxa ugu badan ee dadka raaxada siiyo oo maaragtay qalbigana u waasiciyo marka bal fiiri qof beeraley ah oo maaragtay intuu subaxii ka laho beertiisa aadaay marka uu soo laabto fursad uma helayo murug iyo isla sheekaysi uu iska seexanayo asagoo daalan marka walaalayaal waxaana laga rabaa maaragtay inaan maaragtay murugta iyo tiiraanyada iyo wixii la xiriiro dhan saddexdaas qodob aan ku daaweyno qodobka ugu horeeya waa al-ittisaalu billah ilaahay oo xiriir lala sameeyo culimadu waxay yiraahdeen dikriga maaragtay badan yani oo qofka mar walba ilaahay uu xusaayo ma hor istaagi karo murug ma hor istaagi karto macquul ma aha inay murug hor istaagto oo ay maaragtay suurtagal ma aha qofka inay murug sii hayso asagoo ilaahay xusaay marka inaan ilaahay xuskiisa iyo ilaahay la xiriiridiisa labo qodobka labaad inaan iska ilmaano wixii tagay sababtoo ah waxba kama bedeli karno qodobka ugu dambeeyo saddexaadna inaan mustaqbalka aan maaragtay iska dayno oo aanan ku xisaabtamin maalinkaas aan leenahay maalinka aan joogno inaan maaragtay aan ka shaqaysano marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu tawfiiqdana waafajiyo uu naga dhigo kuwa maaragtay xaqa uu tuso xaqana maaragtay ku dhaqma sharka iyo maaragtay shaydaankana ilaahay naga xijaabo wallahu subxaanahu wa tacaala calaa ma aquulu wakiil